dhammaantood diyaanu dhaafaa hablaha dhammaantood diyaanu dhaafaa dhulka meel badalo dhirtu ay ku badanto indhihii ku dheediyo qalbiga uga dhigantay luquntada dheer iyo dibnahaga dhinka markan dhunkadaabay xaddu idhaqaaqdaa waxaanahay qof dhiigiyo ruuxaaga raaceen niyadaadu yay dhiman ii dhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhex nooleeydoobnimo naftii way diidantii dib u dhaca wakhtiga qof dareenta oo raggu wuxuu ka diido igadaysa waan doondoonaya waan la ahay dhulqa hooyaday waan jeclagay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga uu ku dheeryagayo sida u badan dhalayoo kalaan dhabu jeclaystaaye barwaqada dhextaaleyo nimxada waan ku dhololaaye kusoo dhowo baan leenahay dhulkaaga hooyo saaxiibkay heesaha iyo heese kaloo qaadiyaba habeenka adduun nugulku doogsaday rahuuna nawda dhowrguray nafyaaruhu wax quursaday raganimoy ninkaagii nacasnimo maxaabaday aniga hiilkaygiye hortaa ma ahay qof jira hortaa ma aqoon jacayl hortaa nolol ma lahayn hortaa ma aqoon jacayl hortaa nolol ma lahayn kismaayo wajeerba kalkan layga baaqo kaxda inaan ku noolbay naftu kaalay leedahay waaya warkeeda waa cad yahay daqaariyo xumaatee wuu idaadeeyaa kol ilaba dibleeya imana dulqaadsi ayaa iga daweeya dadow ayaa iga dulqaada aniga taa habeenkaas hal heesaan isku soo toosistay rafaadaan dhigaa ma fahanteed yaan lii qabanin habeenkaas laxanka haa yaan liga xadin adduunyadu marka aada u mahadsantiin habeenkaas arkaysiin doyle raali ka dhigo habeenkaas arki doontiin adarno heesas ku haysataa ma yaan liga xadin habeenkaas arki doontiin asxaabtu waxaan leeyahay kun iyo jeer aada u mahadsantiin الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan marti sharafta halkan ka soo qayb gashay caawa madashan qiimaha badan halkan caawa goobtay ka dhacayso waa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho fanaan
dalmaryare oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho waxaanu mahadcelinaa dhammaan haddii ahaale dhinaca fanaaniinta youtuberska tiktokerka iyo sidoo kale bahda saxaafadda ee ka soo qayb gashay madashan quruxda badan waana kulan casharaf ah uu markaasi sameeyey alfanaan dalmaryare dabcan hore muu dhicin fanaan Soomaaliyeed oo markaa qurbaha ka yimaado halkan show ku qabanaya inuu markaasi fanaaniin iyo dhammaan bahda saxaafadda youtubers tiktok inuu sugu yeero oo kulan noocan oo kale u qabto waana fanaankii ugu horeeyay sida ay sameeyaa dalmar oo dabcan aan u joogna caawa madashan qiimaha badan fanaaniinta ka soo qayb gashay dhammaan aad baa markaa ugu mahadcelinaa iyadoo showga uu noqon doono mid ka mid ah showyadii ugu markaasi saameynta badnaa marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyay maxaa yeelay waxaa ku kulmaya dhammaan fanaaniintii aad jecleedaan oo dhan caawan halkan ay soo istaagi doonaan fanaan walba halkan aad ku aragto caawa iyo kuwa kale markaasi ka maqanba showga ay diyaar markaasi idin kula yihiin waxa marka hore aan ku soo dhaweey doonaa dhinaca mikrofoonka fanaaniin badan ayaa halka joogtayadoo inta fanaanin halka joogtana dhamaantooda ay markaa wada hadli doonaan waxaan soo dhaweynayaa Digriyo Cabdi in halkan uu soo gaaro si markaasi oo isna kulankan ugu hadla caawa dalmar aan ku suganna hoygiisii ee kulankan casharafta waa hagaag saaxiib soo dhaweyn maan waxaa salaamaya marti sharafka caawa madasha diyaar ku ah ee ugu horeeya bahda fanaaniinta iyo gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan ee boqortooyada Soomaaliyeed si u kala duwan yihiin bahda youtube-leyda titoleyda waxaan aad iyo aad u faraxsanahay caawa inaan ku soo dhaweeyo caasimadda ummadda Soomaaliyeed fanaan walaalkay ah oo isku ceesh ahayn isla soo kornay ruuxantii dalmaryare taariikhdiisa wax yar ka war hadda inta laga taabto ariga Digriyo inta aqoon u leeyahay dalmar fanku waa noo horeeyay inta badan hadda fanaaniinta caawa meesha dhooban hal iyo laba marka laga reebo ariga ahaan qaasata Digriyo wuxuu ka mid ahaa fanaaniintii hal mar isla aasaasnay kooxda waayaha cusub soo ogsoonteeda xaruntooda ahaa Nairobi muddo sanado badan oo soo wada shaqeynay walaalkay waxaana haddana mar kale ku kulunay Mareykanka waxa caaw ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo haddana walaalkay intaas isla soo jabnay isla soo ceeshnay inta badan dadka yiraahdaan Digriyo iyo dalmar oo mataamaha fanka haddii dhaqan leh dhanka codka iyo dheerarka waa iraahdeen waaya dalmar walaalkay ku soo dhawow caasimadda ummadda Soomaaliyeed xamar cadeey 31 bisha haduu Ilaahay December habeenka 1 ay soo galayso sanadka cusub 2022 wuxuu show ka dhici doonaa haduu la yiraahdo Sahal Hall aad wada garanayso inuu ku yaalo number 4 fanaaniinta looma kala maqno habeenka haduu la yiraahdo anaga waa ku dhannahay sharafa leeyahay mar kale guuleystayaal waa leen jooga haduu la yiraahdo sharafa leeyahay caawa habeen farxadeed waa habeen kulin aniga igu qaaliya weli waxaan horta dhicin fanaan aan u imaado ama ii dhehdiisa aan ka hadlo ama xamar yimaado muqdisho yimaado aan saan u soo dhaweeyay ama fanaaniintu ay u soo dhaweysay baan horta horay u dhicin caawa habeen ii farxada waa habeen ii taariikhi aniga Daawud Xanfar ahaan walaalkay dalmar in aan ku soo dhaweyno magaalada xamar oo muddo badan uu ka maqnaa caasimadda Soomaaliya kulan hadalka inaan sii badiyo ma jecli oo fanaaniin badan baa iga dambaysa oo gadaasheeda joogta hase ahaatee waxaan jecel lahay inaan halkan aan aad uga soo qayb galo barnaamijkiisa dhici doona sanadka cusub ee habeenka New Yearka xafladaas showgaas inaanu ka soo qayb galayno anagoo wada dhan bahdii fanka oo dhan oo wada joogta aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa horta fanaaniinta ka soo qayb gashay xafladan saaxiibkayna aad waxaan leeyahay mar labaad saaxiib dalmar soo dhaw ku soo dhaw wadankaaga saxaafadda aad baan u salaamayaa bahda youtuberka anu youtuberka aan ka mid ahay youtuber leebana si fiican wala jooga meesha youtuber oo dhan baa meesha ku dhan waan arkayaa fanaaniintii oo dhan waan arkayaa waan u jeednaa oo gadaal bay jiraan marka waxaan leeyahay maxay haray intiirada qosolka ahayd هذا اسمه قاعد ودني كانوا في نالد
dhulka hooyaday waan jeclagay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga uu ku dheeryagayo sida u badan dhalayoo kalaan dhabu jeclaystaaye barwaqada dhextaaleyo nimcada waan ku dhololaaye kusoo dhowo baan leenahay dhulkaaga hooyo saaxiibkay heesaha iyo heese kaloo qaadiyaba habeenka xafladda ayay noo tahay marka waxaan leeyahay bahda youtuberka iyo bahda tiktoka iyo bahaha kale iyo kuwa kaloo soo socdaba salaan sharafeed baan leeyahay salaan gubeed maana wuxuu yeeraya mise idaa u yeeraya yaa jeclahayd noo yeertay waxaan u yeerayaa may u kaadi qof kale u yeeraya way igu xigaay qof baan u kululahay isma aad baad u mahadsantahay ustaad Daawud Xafar afar istaam soo jooga soo dhaweyn wacan ayaan siin doonaa Xariir Axmed ala kala duwan ayaa lagu imaaday saa u jeedaan Xiriir waxa waaye wuxuu u imaaday waxay tahay inuu showga dalmar uu door weyn uu ka qaato sidaa daraadeeda caawana dabcan halkan waxa loo joogo waxay tahay kulankan casharafta uu sameeyay dalmar yare wuxuu ugu talagalay fanaaniinta youtuberska tiktokerka iyo sidoo kale baahda saxaafadda in markaas casuumad uu sameeyo waana dabcan dhanka kale waxaan dhihi karnaa waa fanaankii ugu horeeyay ee sidaa markaas sameeyay in kulan isugu yeero baahda saxaafadda iyo dhammaan fanaaniintii youtuberski iyo qaybta tiktokerka hagaag markan dhinaca hablahan aadi doonaa deemaanto dhan waxaan wadnay dhinaca ragga waxaan soo dhaweynayaa ayaan wadani oo aan dhihi karo waa boqorada codka ayaan soo dhaway ayaan dad maqasheen saawa oo hoygiisu ugu sameynayo dalmareere dhammaan fanaaniinta saxaafadda youtuberska tiktokerka waxaan leenahay ku soo dhawo mar kale dalmaryare halkan waa hoygaagii markan waxaan soo dhaweynayaa Prince Style oo markaasi kamida fanaaniinta habeenkana la yaab ka dhigi doona wili waxaan ku gudi jirnaa xafladda waxaan markaan soo dhaweynayaa Cabdi Dhaanto oo ah lajan weyn Cabdi Dhaanto hay'ad caawa bila suudba aad baan idin salaamayaa dhammaantiin qof kasta mansabka ku fadhiyo meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysaba igu qaata caawa bilaa suud baan ayaaqay wallah dad badan baa isweydiin laakiin caawa waxaan sidhi dad badan oo suudad wataa imaanaya marka sidan iska ku tag caawa xafladda si fiican xogaa maalmahan jeeb qaada marka saasa soo inay feedhi soo baxay ila yar kaata marka funaanadana soo xidhay caawa inta marka laga yimaado waxaan halkan wada joognaa caawa wada aragtaan the one and only legend of the legend wallahi ingiriiska Soomaali saaxiibka dalmaryare waxaan leenahay magaalada ku soo dhawow qadadanadu cashadanadina way dhiman tahay macnaha hadda adan noo sameeymo annana waan ka dhalajinaynaa showga noo dhamaado intaas marka laga yimaado dalmaryare waxaad ogtiin inuu u imaaday inuu show halkan ku qabto 31 bisha oo waqti yar haduu Ilaahay nafteena ugu daayay naga xigta insha Allah shacabka reer Muqdisho oo u baahan yihiin entertainment fanaaniin la janiina uu horkacayo walaalkay dalmar in maartay showgaas loo qabto wax fiican waa wada sugayna waaye waxaan ku leenahay marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad intaba horta magaaladaada ku soo dhawow shacabkaagana waa iswareysan doontaan waa is arki doontaan bacda show kulamaad qaan doontaan halkaad fadhida waad u jeedaa meel ka sareysa macnaha makaranta adaa shir gudoominaya meesha mugta annagana maartay saaxiibka Najiibna uu mahadsan yahay uu noo kala kiciyay meesha noo kala kiciyay digriyow iyo saaxiibkay ninkii youtuberada ninkaan dadka number 1 Balanbaalis studio dadka hadaan sheego walaalayaal baawal baan galayaa haddaan sheego baawal baan galayaa sidoo kale caawa anigu qof ma u yeeran karaa halkan waa u yeeran kartaa laakiin hal dhaanto noogu soo xir marka hore
dhaantadii waa banday wax dhaanta meeshaan qado kuma jiro ogtahay adoo aan lagu ogeyn fanka waa ka baxday daawud xanfar haye yaa horta haddaan idiin sheego dhaantada anaa iskay go'aan uga gaadho inaan iska si iskay ah laakiin xariir baa ma qarxi weysa macnaha de hadda waa shidanahay yaa iga casanada waan iska qaraxsanaya laakiin wax ma soo saaro laakiin heesaaga adaa ka casan heesaaga waayo waa siduu sheegay xariir baa wuxuu hees baa kuu dhiibayaa adila kaftame wuxuu nin ufanka kuu baahan kamana dhexfaxdido waadna dhiftay waxbana ma soo saartid marka maxaan ku dhiibaa markaasoo heeso badan baan ayaa waxba ii baarbaaray jacaylku waa application ayuu iga bilaabay yar la isku shubay macal boostigii iyo blogtiina ku jiraan heestaasna waan soo wadaa xariir baan laxan ka saaraya heestaas tiktok ay qabsan doontaa laakiin tiktoka inuu tiktok waa ii kila xilliga hees jir tiktok ma jiro laakiin hadda ku kala kacayo soo qaad marka saaxiibayaal horta daawud xanfarow fanka only muy buu ahaa arosmanka hoos baa u heesayey laakiin public macnaha kama dhigay laakiin anun ba iska saaray haddana anaa ku soo noqonaya laakiin waxaa la ogaa fanku inuu ii baahan yahay macnaha ma fahamtee fanku ii baahan yahay caadnima iima dhinna wax ii haray ma jirto laakiin dadka inaan dadka murug iyo farxad waxuun inaan u keeno waa waxay dadku ay ka helaan adiga laftirkaa waa u baahanta si fiican waa u baahnay isaga u baahnay aniga noo soo qaad barka laakiin waa ka xumahay dhaantooyin badan ay qaadan laakiin caan ma anaa ka caansan aad uga xumahay midda ugu jeceshaa noo qaad midda ugu fiyuuska badan dhaantooyinkaaga kii aad u dhegeysan jirta awa kabtan baara wajiba baara u yeera bal kabtan baara baara haye kabtan baara kaalay bal baara kaalay maalmahan ma kaftamine igana raalle noqdo baara ninkan lejan waa labaatanka wuxuu noqon doonaa habeen markaasi cajiib ah akram ekey soo dhawow waa fanaan daa'yar waana laxamiista cajiib ah laxmadiisana baryaan wax waa baraha bulshada aad bay u qabsadeen waxaa laga yaabaa dad badan heesaa inay dhegaysteen laakiinse aysan ogeyn dhadhanka qof ku yeela inuu yahay akram soo dhawow thank you najib aad waad umahadsan tahay saaxiib qaaliya aadun udu salaamaya baad saxaafadda baada tiktokerada baada youtuberada fanaaniinta xaggan caawa isugu yimid kulley wax kale isugumaan imaan ixtiraam iyo aanu hayno walaalkeen fanaankeenna qaariga darmaryare habeenkiisii inaan usii bogaadino bulshooyinta soomaaliyeed kulley waxaan leeyahay habeenkaas aynoo ballana aadun udu salaamaya waayahay aad baad u mahadsan tahay akram hal ka mid ah heesahaaga iyadoo waxaa iska doonaya keliya qofka bilaa muusiga maadaama caawa halka mikrofon iyo maksar iyo muusig waxba uusan yaalin haye aad waad mahadsan tahay dhahiya muuqaaga dhigama laho dhaayihii ku qabtaa runtii dholole dhashinabi yusuf baaduna dhax aad waad mahadsan tahay waayahay aad baad u mahadsan tahay akram ekey ayuu markaasi ahaa waagaag waxaa markaan aan soo dhaweynayaa farxiya xalan oo markaasi ka mid ah fanaaniinta codka macadde shuushu cabdalla in halkaa ay soo istaagto shuushu cabdalla ayaan soo dhaweynayaa waana markaasi waxa ay qayb ka tahay dhinaca saamaynta marka la fidhi baraha bulshada gabadha ugu saamaynta badan 1 milyan ayay sii cagaynaysaa dhinaca flowriska dhinaca barta tiktoka aad iyo aad asxaabta dhammaan waa idin wada salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fanaaniinta tiktokarka iyo
wariyayaasha meeshaan joogaan aad iyo aad ayaan idin salaamay waxaan meeshaan kusoo dhaweynayna waxay tahay fanaankeena aadka u qaali ah Dalmaryare waxaan ku leeyahay kusoo dhawow wadankaaga imaade gurigaaga joogtaa insha Allah waxaa waaye mar badan waa is arki doonaa doo alla idmo arooskayga soo dhaw arooskaygana soo qaadan aad iyo aad kusoo dhaweynaa soo dhawow ku leeyahay waayahay waayahay shushu aad baad u mahadsan tahay xafladda waxaan maraynaa dhinaca marka gabagabada iyadoo aan u mahadcelinayno dhammaan dadka halkaa ka soo qaybgalay caawa oo kulanka markaasi isugu wada imaaday maadaama waqtiga uu gabagaba uu marayo dhinaca TikTok-ga waxa markaasi afkeeda ku hadashay shushu Cabdalla waayahay waxa markaan aan soo dhaweyn doonaa musician kaliya caawa halkaan imaaday waa Xamada Al-Azal Xamada ayaan soo dhaweynayaa dabcan waxaan soo gaarnay xafladda meelihii ugu dambeeyay digriyo iyo sidoo kale Dalmaryare waa laba qof markaas soo jabaadeysay Kenya ayagoo caata ay markaas la soo jabaadeen waliba Dalmar oo xilliga timan badan lahaa waagi waayaha cusub ma dhaween waa 2004kii iyo 5kii xilliga markaasi ay shidnaayeen hagaag hay digriyo oo ma satahay lijiib waxaan rabnaa maadaama gabagabada barnaamijka inoo marayso aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa fanaaniinta wiilasha gabdhaha leh inay noo istaagaan Dalmaryare soo dhaweynaynaa inay stage-ka loo soo istaagaan sifo walaalkeen Dalmar hal mar si wada jir ah u soo dhaweyno mikrofoonka asaga siirayna waqtigiisa uu qaadan doona dul yiraahdo ayaa soo dhammaan fanaaniin salli wa sallim wa barik salli wa sallim wa barik على الحبيب الحسيب على الحبيب الحسيب تنبهوا يا الايام تنبهوا يا الايام أما عليكم رقيب أما عليكم رقيب أما عليكم رقيب دقيقة تبع صوت كده بسم الله أيوة كانت مالتا استاذن هيا ده صدق ليك قاعد بنشع صوت واحد wax kale ma helay kuwa kalena way taa dalaga xajoor wallahi ayaa kala wada adii taagtay أو في لو عسل بسم الله الرحمن الرحيم هذا رافق يجري هل قفزة صعبينه فرتا يقعد على سوي عبد دانتو هي وداي سلام منك استاهل هذا النصيب فوتو جروب